haddii aad maqasho Hodan Cabdiraxmaan iyo Mursal Muuse durbadiiba waxa ay maskaxdaadu soo qabanaysaa Qadar Silimo oo ah fanaanad magac iyo miisaan ku leh geyga Soomaaliweyn haddaba daawade maxaa kala socota heshiiska cusub ee Hodan Cabdiraxmaan iyo Qadar Silimo oo ah marwooyin family problem ka dhaxeeyay kadib markii Hodan Cabdiraxmaan dib ugu soo laabatay magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland waxay durbadiiba bilowday xalinta khilaafka muddo badan soo jiitamaya ee u dhaxeeyay iyada iyo Qadar Silimo ka soo gaaray in gumac iyo heesar rasaas hawada la isku mariyo xog sir oo yeeshay warbaahinta qarsooni media waxa ay tibaaxaysaa in Hodan Cabdiraxmaan ay hadiyad qaali ah u keentay caruurta Qadar Silimo ayna doonayso inay mar booqato hoyga ay Qadar ka degan tahay Hargeysa dhanka kale Mursal Muuse ayaa dadaal ugu jira sidoo uu soo saari lahaa heesra la gelina oo sida xogta aan ku helnay dabka saaran xogta sirta aan helnay waxay intaasi ku daraysaa in wali uu jiro isfahan waa u dhaxeeya Axmed Weli Furle iyo Qadar Silimo kaasoo ku aadan in uusan Axmed Weli ku farayarasan heesta Mursal uu soo wado maadaama la doonayo in ay si wada jira muuqaalka heesta ugu soo muuqdaan Mursal iyo Qadar sanadkan si dhamaanaya ayay ahayd markii Qadar Silimo waraysi ay siisay Home Cable ku weerartay Axmed Weli Furle iyo kooxda xidigaha geeska kaasoo sheegtay in uu kayd galiyay heesta higa ay horay u diyaarisay wali Axmed Weli Furle ka gaabsaday in uu jawaab buuxda ka bixiyo eedayntii Qadar haddana waxa taa bedelkeeda afka furatay oo waxba kama jiraan ku tilmaantay xaaskiisa Asma Loof oo iyadu saaxiib dawladaha Hodan Cabdiraxmaan arrimaha masayrkana ka aaminsan wax kama jiraan maadaama iyada qisadan oo kale ay horay u qabsatay wax qasaarana aysan kala kulmin Hargeysa oo hooyo u noqotay khilaafka fanaaniinta isqaba hadda waxa ay curud u noqonaysaa xalinta khilaafaadkii dhacay